sida lagu samata bixi karo lagu badbaadi karo murtiyeedkaas saxaafaddu way akhrisatay shacabka Soomaaliyeed way arkeen waxaan rabnaa inaan ku darno faahfaahin dheeraad aan ka bixino murtiyeedkaas isaga ah waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed u cadeyno in madaxweyne Farmaajo ama madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuusan marna daacad ka ahayn doorasho dalka inay ka dhacdo waxaana sabab u ah inuu ku fashilmay doorashadii qof iyo codka ahayd in dalka laga qabto inuu ku fashilmay in doorashadii kale dadbaneed ee lagu heshiiyay asagii dowlad goboleed ay ku heshiiyeen ay socoweysay heshiiskii ugu dambeeyay 17 September 2020 lagu heshiiyay fulintiisii tabashooyin ku gadaamnaa kulli in uu fulintiisii asaga caqabad ku noqday saas daraadeed madaxweynaha wuxuu ku fashilmay inuu keeno heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu galo madaxweynayaashii asaga ka horeeyay oo mid kamid dhinaciga fadhiya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxay ku guuleysteen xilligii talada hayeen in ay heshiis siyaasadeed oo la isku raacsan yahay la keeno oo dalka doorasho lagu galo taas uu ku fashilmay madaxweyne asagoo 2 maalin ka dhimantaa muddaxileedkiisa ayuu ka soo kacay shirkii asaga iyo dowlad goboleed ay fadhiyeen taasoo cadeynaysa inuu markas damaciisa ahaa extension ama muddo kororsi walina oo baarlamaanka arintaas kula gaafureegay labo madaxweynaha waxaan kaloo anaga ku eedeynay inuu Soomaalina sharciga iyo dastuurka uusan ixtiraamin taariikhdiisa 4 sano kulligeed ay ahayd gacan ka hadal iyo violence iyo in markasta awood iyo ciidan laga hormariyo sharciga iyo dastuurka ugu dambeeyay ka baarlamaanka inuu soo geliyay 100 askari oo dharcad ah si xoog ah loogu marsiyo qorshe xukuumadda ay waday oo ahaa muddo kororsi madaxweynaha waxa isaga qaldan inay awood u tahay sharciga iyo legitimacy inay tahay wuxuu haystaa awood inay ciidanka iyo tahay iyo security-ga iyo sirdoonka oo la adeegsado inay awood tawlo haystaa waa aqliyad faasida oo dadka Soomaaliyeed ay runtii waara ka soo gudbeen waxyaalaha laga yaabo waxaa kamid ah maalin dhaweed daraad markuu ka hadlayay madaxweynaha baarlamaanka hadalkiisa ugu horeeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed way dhageysteen wuxuu sheegay baarlamaanka in muddadiisii ay dhamaatay haddana sharciyo muhiim ay baasgareeyeen maadaama asaga uu ogolaa inay saas yeelaan wuxuu haystaa baarlamaanka muddaxileedkiisii dhamaaday sharciga oo baasgareeyay asaga inuu raali ka yahay inay ku socotay baarlamaanka oo u sheegayay waxa asaga oo raali ka yahay kaliya inay soco karaan yoon u haystaa madaxweynaha taasoo ah mid aad iyo aad u qaldan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed u sheegno madaxweynaha wuxuu maanta ku fadhiyo madaxtooyada ugula jiro waa inqilaab waay haddii inqilaabka loo haysto inay tahay ciidan qabsada meelaha dowladda oo muhiimka ah oo baarlamaanka xira oo siyaasiyiinta iyo maxkamadaha xira hadday tahay sidii 69kii dhacday inqilaab abyad ama inqilaab wuxuu ku fadhiyaa meesha talada oonan dadban oo dadka ka qarsoon ku fadhiyaa sababtoo ah cid kasta oo sharci darro ku fadhisa xukunka waa inqilaab madaxweynaha 4 sano waa dhamaatay wax mandate ah ama xil ah ama sharci oo maanta talada dalka oo ku fadhiyo ma jirto dad badan waxa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay qaadayaan walaha midowga mashaariicda oo tilaabo ah dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u cadeyno mowqifkeena ku aadan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweyne muddaxileedkiisii dhamaaday xukunkan si sharci darro ku jooga wax allaale wixii mas'uuliyadaas xukun boobka iyo awoodda lagu joogana inuu asaga qaadayo wixii ka yimaada inaan shacabka Soomaaliyeed aan u cadeyno talaabooyinka aan qaadayno iyo sida aan arintaas ula tacaalayno waa qaar kamidana waan soo jeedinay xalay sida lagu buuxin karo firaaqa dastuuriga haddii madaxweynaha waan toobi waayo xilkana dhigi waayo talada dalkan iska wareeji waayo talaabooyinka aan qaadi doono iyo sida ula macaamili doonana maalmaha soo socda iyo ficiladeena iyo hadaladeena iyo kulamadeena iyo doodaheena ayaa ku muuqan doonta waxaan rabaa halkan inaan beesha caalamka fariin u diro oon iraado waqti ha ku luminina madaxweyne xilkiisa dhacay muddaxileedkiisii dhamaaday af laguma sii karo sharciyad farmaajo waa sharcigiisiina muddaxileedkiisiina waa dhamaaday doorashadana caqabado ku yahay xagga aan iska dhigno sida dadaalka beesha caalamka waa ka mahadnaqaynaa laakiin waxaan rabnaa inta doorashada diyaarka u ah stakeholderska doorashada diyaarka u ah daacadana ka inay doorasho aadaan oo annaga xalay aan ku muujinay warmutiyeedkeena iyo ayaga inaan ka wada hadalno sidii dalkan doorasho loo aadi lahaa oo aysan waqti ku luminin nin hadda saaki raadinaya muddo kororsi raadinaya asoo sharci darro ku fadhiya madaxtooyada inaysan waqti aysan ku luminin mana doonayno
hadday waayo aragnimo ugu dhiman tahay farmaajona hadda waa dad lunsan oo weli habawsanba hadday wax ugu dhiman yihiin farmaajo ay wax ugu dhiman yihiin farmaajo soomaali intii ku filan way soo aragtay beesha caalamkana way soo aragtay waa caqabad dadkan iyo dalkan in laga horweji u baahan ilaahay mahadiisna xilligiyaa ka dhammaado si dabiiciyo sharcigooba ku wareegay innaga kusii korhayo sii joogana waxay ka mid tahay xasilooni darada iyo qaran dumiska dalkan lala damacsan yahay qayb ka tahay marka waxaan ka rajaynaynaa beesha caalamka xubnahooda qaarkood weliba inay ka waantoobaan inay farmaajo ay dalka iyo dadka weli kusii korhayaan wax nacfiya ugu jirana male waxaan rajaynaynaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo uma muuqdo nin taariikhda iyo sooyaalka soomaaliya wax ka bartay waayihii soo dhacayna nin wax ka bartay uma muuqdo waxaan rajaynaynaa cid waxgarata oo talo ku leh hadday jirto oo waayahaas iyo taariikhdaas u soo nooleed inay u aqal celisaan rajaynaynaa